بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد maanta waxaan bilaabi doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo inaan sharaxaad ka bixino imtixaanka national examinationka ama imtixaanka dowladda ee la qaaday sanadkuseedkii 2021 waxaan sharaxaad ka bixin doonaa ama aan sharixi doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo maadada biology-ga ah insha Allah taala. magaciigu waa ustaad maxamed cusmaan cabdullaahi. haddii ilaahay raali ka noqdo waxaan sharixi doonaa maadada biology-ga ah imtixaanka dowladda qeybtiisii hore imtixaanka waa kanaa waxaa lagu bilaabi doonaa waa section A oo ah qeybta koowaad. waxaa loogu select the most appropriate choice of the given alteration. waxaa laga rabaa inaad doorato doorashooyinkani soo socda midka ugu haboon ee su-aalahani soo socda mid walba jawaabta ugu haboon ee meesha taalo inaad doorato ayaa laga rabaa. sidaas daraadeed su-aasha koowaad haddaan ku bilaabno, the nerves that arise from the brain are known as. nervayaasha ama dareen wadayaasha kuwooda kasoo baxa maskaxda are known as waxaa loo yaqaanaa waxaa halkaa noo yaal spinal cord oo la yihahdo xangulaha. B waxaa inoo ah spinal nerve oo ah nervayaasha la yihahdo spinal nerve oo ah kuwa kasoo baxa spinal cordka. C waxaa inoo yaala cranial nerves halka D-na ay noo taalo central nerves. waxaana la weydiiyey marka waxay tahay the nerves that arise from the brain are known as. nervayaasha kuwooda kasoo baxa maskaxda waxaa loo yaqaanaa. sidaa daraadeed marka nervayaasha kasoo baxa maskaxda waxaa loo yaqaanaa, jawaabta saxda ah waxay noqon doontaa waa C oo ah cranial nerve ayaa waxay tahay jawaabta saxda ah. waxaan u gudbaynaa su-aasha labaad. su-aasha labaad waxaana lahay the nervous system that is controlled by. nervous systemka ama habdhiska dareenwadka that is controlled by kaasoo ay controlsho the hypothalamus oo ah maskaxda qeybta loo yaqaana hypothalamuska ayaa say to be ayagana waxaa la yihahdaa ama waxaa loo yaqaanaa waxaa la waa voluntary, B waxaa la waa sensory, C autonomic, D behavioral. sidaa daraadeed marka aan fiirino su-aashan labaad waxaa la nervayaasha ama habdhiska dareenwadka qeybta ay controlsho hypothalamuska waxaa lagu magacaabaa marka waa jawaabteedu waa C oo ah autonomic nervous system ayaa la yihahdaa. marka waxaan u gudbi doonaa su-aasha saddexaad. su-aasha saddexaad waxaa la using adigoo isticmaalayo the diagram below jaantuska ama sawirka qeybta hoose yaal indicate waxaad cadeysaa the part of the neuron qeybta neuronka ama qeybta neuronka ama nervous cellka ama unug dareenwadaha that receives information kaasi oo ka hela informationka ama xog from the other neurons neuronada kale ama dareenwadayaasha kale. hadii halkaan ku celina waxaa lahay su-aasha saddexaad using adigoo isticmaalaya the diagram below sawirka qeybta hoose ama jaantuska qeybta hoose ku yaal indicate waxaad muujisaa ama aada cadeysaa the part of the neuron qeybta neuronka ama qeybta neuronka ama nervous cellka that receives information taasi oo hesha ama qabata information is warbixino from kuwaas oo ka imaanaya other neurons oo neuronada kale ama dareenwadayaasha kale. halkaan markaa joogno sawira halkaan inooga muuqda. sawirkan waa neuron ama waa nervous cell. sida normalka aan naqaano neuron ama nervous cell marka laga hadlaayo wuxuu ka koobnaa 3 qeybood oo waaweyn. qeyb waxaa la yihahdaa waa cell body, qeybna waxaa la yihahdaa dendrite, halka qeybta saddexaadna ay ahayd axon. sidaa daraadeed sawirka markaa fiiriso qeybtaani ah number 3 waxay noo muujinaysaa waxa la yihahda cell body-gi. qeybta number 4 ka ahna waxay muujinaysaa waxa la yihahda dendrite. qeybtan 2 ga ah waa axon. qeybta number 1 ka uu inoo yahana waxay tahay waxa la yihahda waa axon terminal. sidaa daraadeed jawaabta saxda ah ee su-aashan markaa fiirino waxay noqon doontaa waa xarafka D ama waxaan leenahay waa 4 structure ahaan waa numberka afraad. sababta numberka afraad wuxuu tilmaamayaa waa dendrite. dendrite-ka ayaa fariimaha ka hela neuronska kale kadibna wuxuu usii gudbin doonaa halka loo yaqaano cell body-ga. markaa sidaa daraadeed su-aasha saddexaad jawaabteeda saxda ah waxaan dooranaynaa marka waa xarafka D ama numberka afraad ayaa sax ah oo dendritiska ayaa informationka ama warbixinada ka yimaada neuronska kale
qabta markaa. intaa wixii ka dambeeya waxaa u gudbi doonaa su-aasha xigta ee su-aasha afraad aan tagna markaa. waxaana lahay using adigoo isticmaalaya su-aasha afraad waxaa lahay using adigoo isticmaalaya the diagram below oo ah jaantuska qeybta hoose ka muuqda. answer the question that follows. waxaad ka jawaabtaa su-aashaas oo ah la socoto sawirka meesha taalla markaa. waxaa lahay a girl was involved in an accident. gabar ayaa waxay gashay waxa la yidhahda shil, and the x-ray showed that x-ray ama raaja la saaray gabadhaasi shilka gashay ayaa waxay muujinaysaa the part of the brain qeyb ka mid ah maskaxda indicated by the arrow, qeybtaasoo ay ku muujinayso falaarta meesha kaaga muuqanaysa markaa. halkaan sawirka yaallo waa maskaxdii, waa raajitadii laga soo qaaday gabadha. maskaxda gabadha meesha kasoo muuqato qeybta falaarta kugu taagan tahay ama falaarta qeybta lagu aadiyey ayaa la rabaa in laga hadlo markaa. the part of the brain qeybta maskaxda indicated by the arrow ay muujinaysa ama ay cadeynaysa falaarta was damaged ayaa waxaa ka gaara dhaawac due to sababtuna maxay tahay trauma oo jugtii gaartay gabadha awgeed markaa. what effect will this girl most likely maxay noqonaysaa saameynta gabadhan ku imaanaysa markaa. halkaa marka aan fiirino marka waxaa la gabar ayaa waxay gashay shil, kadib waxaa la saaray raaja ayaa waxaa laga saaray madaxa. waxaa lahay maskaxda qeybta falaarta ay kugu aadan tahay oo qeybtan ayaa waxaa gaaray waxa la yidhahdaa dhaawac gabadhii ka gaaray. waxaa laga rabaa marka what effect will this girl most likely maxay noqonaysaa saameynta gabadhan ay ku dhici doonto maxay noqonaysaa markaa. waxaa leenahay a partial or completely memoryless. inta aan horta su-aalahan jawaabahooda aanan gelin horta aan isla fiirino maskaxda qeybta falaarta ay ku aadan tahay waa qeybta loo yaqaano cerebrumka markaa. cerebellum waa qeybta la yihahdo cerebellum. sida caadigaa cerebellum shaqo ahaan waxay qabataa jirka balansigiisa oo jirka inuu ahaado mid dheelitiran iyo qaab istaaga ama bosjarka qofka oo kale ayay maamushaa. haddii qeybta marka dhaawac uu gaaro qofkii waxaa lumi doona balansigii jirka marka. sidaa daraadeed jawaabtan afartan mid kamid a ayaa jawaabta saxda noqon doonta. gabadhi markay jugtaa gaarto waxaa ku dhici doona partial or completely memory loss. qeyb ama gebi ahaanba gabadhii waxay lumin doontaa wax loo yaqaan xasuustii. b waxaa la body temperature fluctuation. heerkulka jirkeeda ayaa wuxuu noqon doonaa mid fluctuation sameeyo isbedbedela oo meel aan ku cayneyn. travel in maintaining balance. waxaa dhibaato ay gaari doontaa aan leenahay maintaining balance oo inay ilaaliso ama uu balance garoobo jirkeeda. qeybta ugu dambeeyana waxaa ku dhici doona rapid breathing oo neefsashadeeda ayaa degdeg noqon doonta. sidaas daraadeed jawaabta saxda waxaan dooranaynaa waa xarafka c. sababtoo qeybta gabadha dhaawaca ka gaaray ee sawirka nooga muuqato waa cerebellum. cerebellumna waxay mas-uul ka tahay in la balance gareeyo jirka. haddii cerebellumka dhaawac uu gaaro marka waxaa caqabad ku imaan doonto ama dhibaato ay ku imaan doontaa balansigii jirka ayaa dhibaato ku imaanaysaa markaa. waxaan tegaynaa su-aasha shanaad. the primary function of the melanin is to. waxaa la shaqada primariga ah ama aas-aas ahaan shaqada aas-aaska u ah ee ay qabtaan waxyaabaha loo yaqaana melanin ayaa waxay tahay. waxaa leenahay a produce vitamin d waxay soo saaraan alla vitamin d. b waxaa la produce waxay soo saaraan sebum oo waxyaabo dufan ah. c waxaa la waterproof the skin maqaarka ayay waxay ka dhigaan kuwa waterproof ah oo biyaha aysan ka gudbi karin. d waxaa la provide protection waxay siiyaan protection difaac against the sun's uv oo jirka inuu iska difaaco UV-ga ama ultraviolet rayska ka imaanaya qoraxda inuu jirka iska difaaco ay awood ahaan u siiyaan markaa. sidaa daraadeed jawaabta saxda ah oo ay qabato waxa la yidhahda melanin waxay noqon doontaa waa xarafka d oo jirka ayuu wuxuu siiyaa leenahay inuu iska difaaco awood uu isaga difaaco waxa la yidhahda sun's ultraviolet oo ah ultraviolet rayska ama falaaraha iftiinka qoraxda ka imaada inuu iska difaaco ay jirka u ogolaanaysaa markaa. waxaan u gudbi doonaa su-aashan lixaad ayaan u gudbi doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo. su-aashan lixaad waxaana lahay wiilkan yidhaahda cali was injected with a penicillin through the skin ayaa waxaa lagu duray cirbad kaniini ama cirbada la yihahdo penicillin oo nooc ka mid a qalajiyaasha
through the skin waxaana loogu mudo ayaa lahay wax la yidhahda maqaarka using ayadoo la isticmaalayo hypodermic needles oo needleska ama cirbadaha kuwooda waxaa leenahay maqaarka hoostiisa la geliya markaa the first integumentary structure ama qaab dhismeedka ugu horeeya ee ka midka ah integumentary-ga ama qaybta maqaarka ka midka ah through which the needle passed was taasoo cirbada ama needleka afka hore oo cirbada ay ka gudubtay ayaa was waxay ahayd markaa sida caadiga marka laga hadlayo integumentary systemka waxaa ugu ballaaran wax la yidhahda maqaarka marka aan dharaano wuxuu ka kooban yahay 2 layer oo waaweyn lakabka kore ama layerka sare ee maqaarka waxaa la yidhahdaa epidermis kan hoosena waxaa lagu magacaabaa dermis ayaa lagu magacaabaa sidaa daraaddeed waxaa la cali wiilkan yidhaahdo ayaa waxaa lagu duray cirbada la yidhahda qalajiyaha penicillin ayaa lagu duray ayadoo la isticmaalayo kuwa la geliyo maqaarka hoostooda qaybta ugu horeysa ee integumentary structure-ka ah ee ka midka maqaarka qaybtiisa sare through which the needle passed was taasi oo cirbadani afkeeda hore ay ka gudbi doonto ayaa wuxuu yahay waxaa la reticular layer B waa epidermis C waa papillary layer D na waxaa la waa hypoderm sidaa daraaddeed waxna la weydiiyay marka waxay tahay waa kan ugu sareeya ama ugu horeeya ee cirbadan ay ka gudbayso sidaa daraaddeed jawaabtu waxay noqon doontaa waa xarafka B waa epidermis sababtoo epidermiska ayaa ah lakabka ugu sareeya ee maqaarka markaa waxaan u gudbaynaa su-aasha 7 in humans marka la joogo bini'aadanka all are the functions of the skin dhammaan waxyaabahan meesha yaalo waa shaqada ay qabto ama uu qabto maqaarka except marka laga reebo anaa alla bini'aadanka marka la joogo dhammaan waxyaabahan soo socda oo dhan waa waxyaabaha uu qabto maqaarka marka laga reebo marka dhammaan 4 xabaa ku taal 3 ka mid ah waa shaqada maqaarku uu qabto mid ka midana ma qabto markaa waxaa la waa respiratory gas exchange oo gaasiska respiratory-ga ka qayb qaata sida oxygen-ta iyo gaaska ay oxygen-ta iyo waxa la yiraahdaa carbon dioxide-ka ayaa maqaarka waxaa leenahay isbedel ka sameeya ayaa la dhamaa isbedel ku sameeya B waxaa la preventing waxay ka hortagaan unnecessary water loss oo biyaha aan loo baahnayn in la lumiyo ayay ka hortagaan C waxaa la excretion oo qashin saar ayuu sameeyaa maqaarka D waxaa la regulation of the body temperature wuxuu regulate gareeyaa ama uu controla body temperature heerkulka jirka sidaa daraaddeed su-aasha 7 jawaabteeda saxda waxaan dooranaynaa waa xarafka A oo respiratory gas exchange intaan kale maqaarka wuu qabtaa laakiin maqaarka kama dhacdo gases exchange isbedbedelka hawooyinka maqaarka kama dhaco marka la joogo bini'aadanka markaa waxaan tegaynaa su-aasha 8 a type of bone nooca laf that is classified irregular bone taasi oo loo saaray inay tahay irregular bone oo laf aanan lahayn shape ayaa is known as waxaa lagu magacaabaa tusaalahaan waxaa la lafaha meeshan yaal ee 4 xaba ah midkee ayaa ah laf aanan lahayn shape sax ah oo lagu aqoonsaday aanan lahayn waxaa la waa leg bones lafaha lugaha B waxaa la waa vertebra oo ah lafaha dhabarka C waxaa la waa skull oo ah lafta gambada ama lafta madaxa D na waxaa la waa wrist bones oo ah lafaha yaryar ee ku jira halka ee loo yaqaan cumaha markaa sidaa daraaddeed lafaha aanan shape-ka saxda aanan lahayn 4 waxaa noqon doono waa B oo ah vertebra oo ah lafaha laf dhabartu waxay yihiin waa irregular bones oo ma lahan shape sax ah markaa waxaa u gudbi doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo su-aasha 9aad waxaa leenahay su-aasha 9aad waxaana lahay which of the following is not kuwani soo socda midkee which of the following waxaana lahay su-aashan 9aad which of the following is not part of the appendicular skeleton kuwani soo socda midkee ayaanan ahayn part of the appendicular skeleton qayb ka mid ah skeletonka ama qolfoofta qaybta loo yaqaan qaybta raaracda appendicular skeleton waxaa la yidhahdaa waa qaybta raaracda sida lugaha oo kale iyo gacmaha ayaa waxaa la yidhahdaa appendicular skeleton lugaha iyo gacmaha iyo lafaha lugaha iyo gacmaha ku haya axialka oo ah qaybta dhexe ayaa waxaa la isku yiraahdaa leena appendicular skeleton sidaa daraaddeed waxaan la su-aashan 9aad which of the following kuwani soo socda midkee is not part of the appendicular skeleton ayaanan qayb ka ahayn skeletonka ama qolfoofta qaybta loo yaqaan appendicular skeletonka oo qolfoofta qaybta raaracdo yaanan ka mid ahayn markaa waxaa lahay waa shoulder oo ah garabka B waxaa lahay waa hips oo ah simaha C waxaa lahay waa feet oo micnaheedu laga wado waa cagaha D na waxaa inoo ah waxa loo yaqaan skull
skull waxaa la yidhahdaa waa gambada ama lafaha madaxa. sidaa daraadeed afartan waxaanan ahayn appendicular, waxaanan ahayn skull ayaa waxaysan ahayn waxa la yidhaahdo appendicular skull ayaanan ahayn. sababtoo ah saddexdan soo hartay waa appendicular skeleton laakiin skull ma ahan appendicular. waxaan tegaynaa su-aasha 10aad. space lagu baneeyay waxaan lahay markaa releases waxay soo daayaan excess water oo ah biyaha dheeraadka ah that helps the skin kuwaasoo ka caawiya maqaarka to regulate inay controlaan body temperature heerkulka jirka. waxaa la releases waxay soo daayaan excess water biyo dheeraad ah ama biyaha dheeraadka ah that helps the skin kuwaasoo ka caawiya maqaarka to regulate body temperature oo ah in ay controlaan heerkulka jirka. ay afartan iyo noqon doonaan marka. A waxaa la waa sweat glands, B waxaa la waa sebaceous glands, C waxaa la waa oil gland, D waa cereminous glands. sidaa daraadeed jawaabta saxda ah waxay noqon doontaa waa xarafka A oo waa sweat gland. sweat glands waxaa la yidhahdaa waa qanjirada kuwa soo saara dhididka ayaa sweat gland la yidhaahdaa. sidaa daraadeed biyaha dheeraadka ay soo saaraan si waxayna ka caawiyaan maqaarka inuu controlo body temperature-ka ama heerkulka jirka. markaa waxaan u gudbi doonaa su-aasha 11aad. waxaan lahay Cali has eaten a bread. wiilka la yidhahda Cali ayaa wuxuu cunay waxa la yidhahda roti for breakfast isagoo rootigaas u cunaya quraac ahaan. the glucose levelka sokorta ama heerka sokorta of his blood ee dhiiggiisa wuxuu noqon doonaa markaa. waxaa la wiilkan yidhahda Cali haddii uu cuno wax la yidhahda ama uu cuno wax la yidhahda roti quraac ahaan levelka sokorta dhiiggiisa waxay noqon doontaa A increase way siyaadi doontaa, B waxaa la decrease way yaraan doontaa, C remains the same sideedii ay ahaan doontaa, D waxaa la decreases way yaraan doontaa and increase haddana way siyaadi doontaa. jawaabta saxda waxay noqon doontaa marka waa xarafka A oo macnaheedu maxaa laga wadaa way siyaadi doontaa sokorta. sababtoo Cali waxa uu cunayo waxay yihiin waa rotina waxaa leenahay waxa mostly wuxuu noqdaa wax la yiraahdo waa carbohydrate cuntooyinka la yiraahdo. sidaa daraadeed carbohydrate-kana sokorta wuu siyaadiyaa oo isagaaba sokor ah markaa. waxaan tegaynaa su-aasha 12aad. the thyroxine hormone hormoonka loo yaqaano thyroxine hormone is secreted by waxaa soo daayo yaa soo daaya A pituitary gland, B adrenal gland, C thyroid gland, D parathyroid gland. sidaa daraadeed hormoonka la yihahdo thyroxine hormone marka waxaa laga soo daayaa qanjirka lagu magacaabo C oo ah qanjirkan la yihahdo thyroid glandiga ayaa laga soo saaraa hormoonkan loo yaqaano thyroxine hormone. markaa waxaan u gudbi doonaa su-aasha 13aad. su-aasha 13aad waxaa lahayd the tough outer membrane xuubka adag ee dhanka iyo banaanka xiga covering kaasi oo ku daboolan the brain oo maskaxda and spinal cord iyo xangulaha of vertebrates ee lafdhabarleyda ayaa scolid waxaa lagu magacaabaa. the tough outer membrane waxaa la xuubka adag ee banaanka xiga covering kaasi oo ku daboolan the brain oo maskaxda and spinal cord oo xangulaha of the vertebrates ee lafdhabarleyda ayaa scolid waxaa lagu magacaabaa. A waxaa la dura matter, B waxaa la waa pia matter, C arachnoid matter, D waxaa la cerebrospinal fluid. sidaa daraadeed su-aashan 13aad jawaabteeda saxda ah wuxuu noqon doonaa A oo ah dura matter ayaa sax ah. markaa waxaanu tegi doonaa su-aasha 14aad. waxaa la if one strand of a DNA haddii hal dhinac ama hal silsilad oo DNA ah ay ka kooban tahay intaani soo socdo waxa lagu siinayo waa nitrogenous basiskii. the complementary strand will be qaybtaani lagu siiyey qaybta kale ee dhammaystiri doonto waxay noqon doontaa. markaa tan marka waxay u baahan tahay in aad fahansan tahay wax la yiraahdo waxaa jira wax la yiraahdo complementary base pairing. complementary base pairing complementary base pairing. complementary base pairing
complementary base pairing of a DNA marka la joogo tusaale ahaan waxaa la yidhahdaa adenine meesha ku aragto mar walba waxay qabsataa waxa la yidhahdaa thymine iyo adenine mar walba ayagu way isku aadaan oo way isqabsadaan halka guanine mar walba wuxuu qabsadaa waxa loo yaqaano cytosine sidaa daraadeed haddii aad fahansantahay marka complementary base pairing adenine meesha ku aragto waxaa ku aada thymine guanine meesha ku aragtana waxaa ku aadi doono ama ay qabsan doono waxa la yidhahdo cytosine adi waxa lagu siiyey marka waa hal dhinac oo DNA ah ilaan DNA waxaan naqaanaa waa double helix oo laba silsilad oo isku laalaaban ay ka samaysneed labadaas silsilad mid kamid ah lagu siiyey intaanay ka kooban tahay lahay qaybta labaad marka waxaa laga rabaa qaybteedii labaad inaad sheegtaa laga rabaa tusaale haddii meeshaan adenine uu yahay adenine mar walba waxaa qabsado thymine thymine ayaa qabsado adenine cytosine yaa qabsado guanine guanine yaa qabsado cytosine thymine waxaa qabsado adenine thymine kale waa adenine adenine waa thymine adenine kale waxaa qabsan doona thymine guanine waxaa qabsan doona cytosine cytosine guanine guanine cytosine adenine thymine guanine cytosine thymine adenine cytosine iyo guanine adenine ugu dambeyn waxaa qabsan doona thymine sidaa daraadeed waxaan haysanaa marka adenine meesha ku aragto waxaa ku aadi doona thymine thymine waa adenine guanine waxaa ku aadi doona cytosine sidaa daraadeed marka jawaabta saxda ah waxay noqon doontaa afartan midkood ayaa wuxuu noqon doonaa mid sax ah markaa sidaa daraadeed jawaabta saxda ah waxay noqon doontaa sida hadda qaybtan saraba aan ku qornay waxaa jawaabta saxda ah inoo noqon doonaa leenaha waa xarafka A oo adenintan waxaa ku aadi doona thymine thymine waxaa ku aadi doona adenine cytosine waxaa ku aadi doona guanine sidaa daraadeed jawaabta saxda ah ee su-aasha 14aad waxay noqon doontaa halena waa A markaa waxaan u gudbaynaa markaa su-aasha inoo xigta ee ah su-aasha 15aad ayaan u gudbi doonaa markaa waxaan u gudbi doonaa su-aasha 15aad ayaan u gudbaynaa markaa waxaana lahay su-aashan 15aad a black ox oo ah dibi madow was crossed with ayaa waxaa lagu talaalay a white cow oo ah sac cad identify waxaad aqoonsataa the resulting phenotypic ratio waxaa leenaha noolayaasha ka dhalan doono ratio ahaan sida uu noqon doono phenotypekooda ama muuqsheegooda sida uu noqon doona laga rabaa waxaa lahay black ox oo ah dibi madow ayaa waxaa leenaha was crossed with waxaa lagu talaalay white cow oo micnaheedu maxaa laga wadaa sac cad ayaa lagu talaalay identify waxaad aqoonsataa the resulting phenotypic ratio waxaa leenaha phenotypic ratioga ama saami ahaan muuqsheega soo bixi doono sida uu noqon doono saami ahaan ayaa laga rabaa inaad sheegto markaa waxa aan haysana marka waa dibi madow waa black ox waxaan waa phenotype genotypekiisana waa B capital iyo B small was crossed with waxaa lagu talaalay ayaa la white cow oo sacad white cow marka la yiraahdo waxana loo sheegay waa phenotype ama waa muuqsheegi genotype ahaanna muxuu noqon doonaa B small waxaana la rabana waxay tahay ubadka ay dhali doonaan phenotype ahaan ratio-gooda qaabka uu noqonayo ayaa la rabaa inaynu sheegno markaa okay su-aasha 15aad markaa imaano waxaa lahay a black ox oo micnaheedu laga wado dibi madow genotype ahaan waana la siiyey waa B ayaa waxaa lahay was crossed waxaa lagu talaalay waxa la yiraahdo a white cow oo sacad ayaa lagu talaalay genotypekiisana waana la siiyey waxaana lahay identify waxaad aqoonsataa the resulting phenotypic ratio waxaa leenahay phenotypic ratioga halkaa ka dhalan doona micnaha muuqsheega saami ahaan wixii soo baxa sida ay noqon doonaan nagala rabaa okay waxaa la isku talaalay maxay yihiin waa a black ox oo ah dibi madow okay black ox markaan aano genotypekiis waana la siiyey waa B is crossed with waxaa lagu talaalay waxa la yidhahdaa white cow oo ah sacad ayaa lagu talaalay sacadna waana la siiyey genotypekiisa waa B oo labadaba small ah halkaa marka waxaan fahmaynaa cadaanka ayaa wuxuu yahay waxa loo yaqaano recessive sheekhsane halka madowgana uu yahay waxa la yidhahdo dominant oo ah sheeqi labada marka la rabo in la isku talaalo isaabka ugu horeeya laga bilaabo wuxuu ahaan jiray waxa la yidhahdo gamete formation oo in la sameeyo gametes ama sex cells-kii halkan waxaa imaan doona waa B capital kan kale xagga mari waa B small okay inay gametes yihiin muuji waxaa la gelin doonaa waxa la yidhahdo goobo qaybtan labaad ima waa B small
gamete marka la sameynaa halkan waxaa imaan doona b small, dhinacan kalena waa b small. waxaa hadda aan haysana marka waa gameteskii. dibigii madooba waa kana waa black ox, genotypekiis waa kan. halkan waxaa inoo yaala waxa la yihahdo waa white ox, oo micnaheedu maxaa laga wadaa leenahay cafwan waxaa laga rabaa white cow oo ah sici cadaan. marka black ox marka la yiraahdo waa phenotype-kii, white cow waxaa leenahay waa phenotype. xarfaha markaan isticmaalayna waa genotypeski. okay, aan isku talaalna marka. kan waxaan ku talaali doonaa kow sida caadiga kan ku talaal waa gameteskii oo black oxiga iyo gameteskii white cow waa la isku talaale. waxaa soo bixi doona b capital iyo b small. mar walba marka b-dan oo capitalka ah waxaa leenahay waxay u taagan tahay waa black oxigii, smallkana wuxuu mas-uul ka yahay white. labadooda hadday israacaan marka xarafka capitalka iyo smallka hadday israacaan waxaa soo muuqan doona mar walba capitalka soo muuqanayo. capitalkana wuxuu mas-uul ka ahaa midabka loo yaqaano blackga markaa. okay, kan ku talaal isagana maxaa soo bixi doono waa b capital iyo b small. haddii kan iyo kan aad isku talaalana waxaa imaan doona b small b small. kan ku talaal isagana waxaa soo bixi doona b small iyo b small. okay, b capital b small kan markay israacaan waxaa leenahay waa black. ila mar walba capitalka la raaca, capitalkana mas-uul wuxuu ka ahaa black. labadaa markay israacaan waxaa leenahay waa black ayagana. b small markuu yimaado waa white, cadaan u noqon doonaa. b small kan kalena waa white, waa cadaan. halkan marka waxaa haysanaa waxa soo baxay waa 4 ubad ah, 2 kamid ah waa madow, 2na waxay noqdeen wax la yiraahdo waa cadaan. ratio ahaan see loo qoraa marka waxaa leenahay 2 ayaa waxay noqotay black oo ah madow ratio. haya meeqa white noqotay? 2dan waa white, 2na waxay noqdeen aan leenahay wax la yiraahdo white oo ah cadaan. markii ratio la sameynayo maxaa la sameeyaa? tirada hadday fududeysmayso ratio waa la sii fududeeyaa. meeshan waa 2 iyo 2, sidaa daraadeed inta 2 waxaa soo bixi doona waa 1 oo black ah. marka la sii fududeeyo 1 black ratio. ay inta sii fududeeyo 2 u qaybi waa 1, 1na wuxuu noqon doonaa white. sidaa daraadeed ubadka soo bixi doona ratio ahaan waxay noqon doonaan 1 xabo oo black ah, 1 black iyo 1 white. jawaabta marka halkan ka raadi marka. sidaa daraadeed jawaabta noo soo baxayso waa xarafka b ayaa sax noqon doono, oo wuxuu yahay 1 ayaa wuxuu yahay black, 1na wuxuu noqon doonaa wax la yiraahdo white ayuu noqon doonaa markaa. sidaa daraadeed su-aashan jawaabteeda saxda marka waxaan dooranay sidaa daraadeed su-aasha 15aad marka jawaabteeda saxda ah sida aan soo aragnaba waxaa inoo soo baxay 1 black 1 white. waxaan tegaynaa su-aasha 16aad. according to the Mendel, ayadoo loo fiirinayo ninka loo yaqaano Mendel oo ah father of the genetics, the crossing between purple flower, crosska u dhaxeeya marka la isku talaalo ubax midabkiisu uu yahay purple, genotypekiisu waa lagu siiyey, and a white flower iyo ubax midabkiisu uu yahay cadaan, results waxaa ka dhashay the F1 generation becoming. waxaa leenahay generationka koowaad ama jiilka koowaad ubadka soo bixi doona waxay noqon doonaan. aan ku celiyo halka according to the Mendel, ayadoo loo fiirinayo ninka loo yaqaano Mendel oo ah father of the genetics, the crossing between isku talaalitaanka u dhaxeeya a purple flower oo ubax midabkiisu uu yahay purple oo genotypekiisana BB oo capital la siiyey, and a white flower iyo isku talaalitaankan wuxuu u dhaxeeyaa ubax midabkiisu uu yahay cadaan, ayaa results waxaa ka dhashay the F1 generation become in jiilkiisa koowaad uu noqdo sidaani soo socda. okay, sidee ayuu noqon doonaa marka? waxa la isku talaalayo waa purple flower, waxaa loo qaatay waa BB oo maxay tahay wax la yiraahdo BB oo waxaa loo qaatay capital ah. white kana waxaa loo qaatay BB oo maxay yihiin small ah. marka la isku talaalayo waxaa la sameeyaa gamete formation waa B capital iyo B capital labadaba. halkan imo gamete formation kii sameey waxaa imaan doona B small iyo B small waa gameteskii. okay, kan waa capital, kanna waa small. kan ku talaal maxaa soo bixi doona waa B capital B small. haddii haddana kan aan qaadno aan kan ku talaalna gametekan kale waxaa soo baxay B capital iyo B small. okay, kan labadan waa ku talaale, ay kan qaad kan ku talaal waxaa soo bixi doona wax la yiraahdo B capital iyo B small.
haddii kan aan qaadno haddana kan ku tallaalno gameedkan iyo gameedkan waa b capital iyo b small. sidaa daraaddeed b capital b small, capitalka wuxuu mas-uul ka yahay midabka loo yaqaano purple, b smallkana waxay mas-uul ka tahay waxa la yihahdo waa white-ka ayay mas-uul ka ahayd. hadday labadooda israacaanna mar walba waxaa soo bixi doona xarafka capitalka ah astaan ahaan midkuu mas-uul ka yahay. sidaa daraaddeed capitalka wuxuu mas-uul ka yahay ama mas-uul wuxuu ka yahay midabka loo yaqaano purple-ka markaa. sidaa daraaddeed kan wuxuu noqon doonaa purple, kanna waa purple, kan waa purple, kan waa purple. dhammaan marka ubadka soo bixi doona markii la isku talaalo dhammaan waxay noqon doonaan purple. sidaa daraaddeed jawaabta waxaan dooran doonaa all waxay noqon doonaan purple. oo micnaheedu maxaa laga wadaa haddii la isku talaalo geed ubaxiisu u yahay purple biyur ah, haddii lagu talaalo geed ubaxiisu u yahay white oo waxaa leenahay haddii la isku talaalo jiilka koowaad ubadka soo bixi doona dhammaan waxay noqon doonaan aan leenahay purple ayay noqon doonaan markaa. waxaan tegaynaa su-aasha inoo xigta ee ah waxa la yidhahdo su-aasha 17 aan tagna markaa. su-aasha 17 waxaan lahay which of the following regions, waxaa leenahay kuwani soo socda gobolkee in Soomaaliya ee kamid ah Soomaaliya do you expect ayaad rajeynaysaa to find in laga helo a greater species diversity, kala duwanaanshaha xagga jinsiga ama sinjiga noolayaasha nooca kala duwanaanshaha ugu badan goboladan soo socda ee Soomaaliya kee laga hela ayaa isleedahay. hadii aan ku celino waxaan lahaa which of the following regions, goboladani soo socdo ee gobolada Soomaalida ah midkee do you expect ayaad rajeynaysaa to find in laga helo a greater species diversity, kala duwanaanshaha ugu badan ee noocyada noolaha intee laga helaa. okay, a waxaa la waa gobolka Galgaduud, b waxaa la waa Banaadir gobolka Banaadir, c waxaa la waa gobolka Bari, d na waxaa la waa Lower Juba. Lower Juba macnaheedu maxaa laga wadaa waa Jubbada hoose markaa. sidaa daraaddeed jawaabta saxda ah waa Lower Juba oo waa Jubbada hoose, sababtoo ayada waxay tahay meesha ugu badan ee laga helo noocyada kala duwan ee noolayaasha markaa marka la joogo Soomaaliya. su-aasha 18 the groups of organisms, waxaa leenahay groups of organism that contain the large estimated number of species are, waxaa la su-aasha 18 waxaa leenahay kooxda noolayaasha ah that contain the large estimated number of species, kuwaasoo waxaa leenahay ka kooban large estimated number tirada ugu badan ee la saadaaliyo species ahaan ama noocyada noolaha marka laga hadlayo ayaa aar waxay yihiin. a waxaa la waa birds waa shimbiraha, b waxaa la plants waa dhirta, c waxaa la insects oo cayaanada, d na waxaa la waa mammals oo ah naasleyda. sidaa daraaddeed noocyada ugu badan ee noolaha ee la qiyaaso adduunyada marka la fiiriyo waxaa la yidhahdaa waa c oo ah insectska ama cayayaanada ayaa waxaa la waa the largest markaa. intaa markaa ka gudubno waxaan u gudbi doonaa su-aasha xigta ee ah su-aasha 19 ayaan u gudbi doonaa markaa. waxaa la su-aasha 19 study the figure below, waxaa la sawirka qaybtan hoose yaalo fiiri ama daraasay. mention the part of the ear that is responsible for hearing, waxaa mention garaysaa ama waxaa sheegtaa the part of the ear qaybta dhegta that is responsible taasi oo mas-uul ka ah for hearing oo maqalka yaa mas-uul ka ah. waxaa la sawirkan hoose fiiri qaybtee dhegta kamid ah ayaa mas-uul ka ah maqalka. a waxay kuu sheegay qaybtani a waxay kuu sheegi doonaa semicircular canal, b waxaa la waa cochlea, c waxaa la waa tympanum, d na waxaa la waa ear canal. sida caadiga semicircular canaliska waxaa leenahay waxay mas-uul ka noqdaan ama ay ka qayb qaataan body balancing ay ka qayb qaataan. marka la yidhaahdo b oo ah cochlea ayaa waxaa la yidhahdaa waa qaybta mas-uulka ka ah hearing ama maqalka. anaga marka su-aashana la weydiiyo waxaa tahay sawirkan qaybta hoose yaa la fiiri qaybtee ayaa mas-uul ka ah hearing ama maqalka. jawaabta saxda waxay noqon doontaa marka waa xarafka b oo ah cochlea ayaa wuxuu mas-uul ka yahay maqalka markaa. sababta tympanumka marka laga hadla waa ear drumka ama waa durbaankii dhegta, ear canalna waxaa leenaha waa dulaalkii dhegta markaa. sidaa daraaddeed jawaabta saxda ah su-aasha 19 waxaa leenaha waa cochlea. waxaan tegaynaa su-aasha 20 waxaa la Farax whose blood group is A, wiil la yidhaahda Farax kaasoo blood groupkiisu uu yahay A heterozygous oo macnaheedu heterozygous A ah ayaa Marius wuxuu guursaday Fatima ama gabadha loo yaqaan Fatima whose blood group is B heterozygous. gabadhaasi Fatimana blood groupkeeda wuxuu ahaa waa B oo heterozygous ah.
what is the probability muxuu yahay ixtimaalka that one of their children become o kaasi oo mid ka mid a caruurteeda uu ku noqon doono o muxuu yahay markaa. haddii aan fiirino marka taa waxay u baahan doontaa waxa la yidhaahdo inaan ka shaqeyno. halkan imo waxaana la siiyo waxay tahay waa wiil la yidhaahdo cali cadnaan, wiil la yidhahdo farax, blood groupkiis waxaa la waa heterozygous a. heterozygous a marka la yidhaahdo genotype ahaan ama muuqsheeg ahaan wuxuu noqon doonaa a o. genotype ahaan muxuu yahay waxa la yidhaahdo waa a o, ila waa heterozygous, waa different genot. wuxuu guursaday ayaa lahay gabar loo yaqaano Faatuma ama Faadima, taasi oo blood groupkeedu u yahay heterozygous b. heterozygous b blood groupka marka laga hadlayo genotype ahaan waxaa loo qoraa isagana b o. markay isguursadeen waxaa leenahay markay dhacdo waxaa la rabaa in la isku talaalo markaa. si isku talaalid loo sameeyo fast waxaa qasaba in la sameeyo waxa la yiraahdo gamete formation oo gametiska in la sameeyo. okay, gamete formationka processka dhici doono halkan waxaan leenahay a, intan waxaa mari doono waa o. waxaa la gelin doonaa goobo, waxayna cadeynaya goobada wax meesha yaal inay yihiin gametiskii. okay, gamete formation sameey waa b iyo o. okay, marka la isku talaalo maxaa la sameyn doonaa gametkan a uu leeyahay wiilka la yiraahdo Farax ayaa waxaa lagu talaali doonaa labadan gamet oo ay leedahay gabadha loo yaqaano Faatuma. okay, kan ku talaal waxaa soo bixi doona a b. kan qaadadana kaa ku talaal waxaa soo bixi doona a o. okay, kan marka eedan ama gametkan labadan waa ku talaalay, haddana waxaa imaan doonaa gametka xiga ee o imaa haddana o waxaan ku talaali doonaa kan oo b, waxaa soo bixi doona waa b o. ilaa alphabetical usoo kala hormarina b-dan soo hormarin. o-dan kala qaadayna waxaan ku talaalaynaa o, waxaa soo bixi doona o o. okay, afartan noo soo baxday a iyo b haddii is raacaan blood groupka wuxuu noqon doonaa a b. a iyo o haddii is raacaan blood groupka wuxuu noqon doonaa a phenotype ahaan. b iyo o haddii is raacaan waxaa soo bixi doona b. o iyo o haddii is raacaanna waxaa soo bixi doona o. sidaa daraadeed guud ahaan ubadka meeshaan dhasho waa afar. mid wuxuu noqday waa a b, mid wuxuu noqday waa a, mid wuxuu noqday b, midna wuxuu noqday o. anaga waxaana la weydiiyey marka waxay tahay muxuu yahay probabilityga ama ixtimaalka mid ka mid ah caruurtooda uu ku noqon karo o. waxaa leenahay intaan markaa joogno horta guud ahaan ubadka dhasho waa imisa. waxaa leenahay waa afar, hooseeyaan ka dhigeena. okay, afartan caruurta ah ee dhalatay imise ayaa noqotay o. kan wuxuu noqday a b, kan waa a, kan waa b, kanna waa o. meeqaa o noqoto marka afartoodii mid ka mid ah. okay, 1/4 ay noqotay oo lagu dhuftay percentage ahaan la rabaa in loo sheego 100% ku dhufo markaa. okay, haddii aanano hal lagu dhuftay boqol waa boqolkii loo qeybshay afar maxaa soo bixi doono 25. sidaa daraadeed probabilityga ama ixtimaalka ubadkooda mid ka mid ah uu ku noqon karo waxa loo yaqaano o wuxuu noqon doonaa 25% ayuu noqon doonaa. qaabkuu ku imaadana waa kanaa markaa. halkaa waxaa u gudbi doonaa qeybtii koowaad ee ahayd doorashada. halkaa uga gudub markaa waxaan geli doonaa qeybta labaad ee imtixaanka. waxaa leenaha waa match, waa isku aadin waa. waxaa la relate the terms in column a, waxaa la xiriirisaa ereyada yaala columnka koowaad ee a with the meaning or function in the column b using numbers. waxaa ku aadisaa ereyada yaala columnka a, waxaa ku aadisaa kuwa yaala columnka b oo noqonaya micno ahaan ama shaqo ahaan kuwii a sheegaya markaa. waxa ay isticmaalaysana waxaa la using, waxaa isticmaalaysa waxaa la yidhahda number iska isticmaalaya. xarfaa lama isticmaalayo, number aa la isticmaali doonaa. okay, su-aasha qaybta koowaad column a maxaa yaala meninges. meninges waxaa nagala rabaa marka jawaabtiisa saxda halkan uu yaala inaan sheegno markaa. meninges haddaa maqasho waxaa la yidhahdaa waa xuub. xuubkaas oo ah xuubka ku dahaaran maskaxda iyo xangulaha ayaa waxaa la yidhahdaa meninges ayaa lagu magacaabaa. sidaas daraadeed waxaa leenaha meninges waa xuubka ku dahaaran maskaxda iyo xangulaha. jawaabtiisa saxda halkan ka raadi marka halkan ka raadino waxay noqon doontaa waa kana waa the layer, waa lakab that covers kaas oo ku dahaaran ama daboola the brain maskaxda and spinal cord oo xangulaha ah markaa. sidaa daraadeed meninges wuxuu ku aadi doonaa waa kan. waxaa isticmaalaynaa marka waa numberka. ay meninges numberka wataa number 1,
yuu ku aadan yahay waa kan. halkan waxaan gelinaynaa numberka ah number 1 halkan noo geli markaa. ila meninges waxaana waa the layer waa lakab that covers kaas oo daboola the brain oo maskaxda and spinal cord oo xangulaha ah markaa. hay qaybta labaad imaw cerebrum maxaa la yiraahdaa. cerebrum marka laga hadlaayo waa qaybta ugu weyn maskaxda ayaa waxaa la yiraahdaa cerebrum ayaa lagu magacaabaa. okay halkan ka raadi waa kan the largest and the most complex parts of the brain waa qaybta ugu ballaaran uguna baaxadda weyn marka laga hadlaayo maskaxda. okay ayadana jawaabteeda waxaa leenahay waa kana halkan waa 2 ilaan cerebrum waa ka. waa gartay cerebrospinal fluid. cerebrospinal fluid maxaa la yiraahdaa waa fluid ama waxaa leenahay waa dareere kaasi oo siiya oxygen-ta iyo nafaqada ayuu wuxuu siiyaa ama uu geeyaa halka loo yaqaano brain oo maskaxda. sidaa daraadeed cerebrospinal fluid waa kana jawaabtiisa saxda halkan ku aadinaynaa marka. number 1 wata waa number 3 oo muxuu noqday cerebrospinal fluid waa the fluid waa dareere that provides kaasi oo siiya oxygen and nutrients oxygen-ta iyo nafaqooyinka to the brain oo maskaxda markaa. waxaan tegaynaa hypothyroidism maxaa la yiraahdaa. horta hypothyroidism sida caadiga waxaa la yiraahdaa waa marka uu yaraado hormoonka loo yaqaan thyroid hormone marka uu yaraado ayaa waxaa la yiraahdaa xaaladda ka dhalata hypothyroidism. okay inta ka raadi jawaabta saxda ah waa kan thyroid hormone deficiency markuu yaraado thyroid hormone maxaa la yiraahdaa hypothyroidism. numberka soo qaada marka. okay number 4 halka ay geli. hypothyroidism muxuu ahaa marka thyroid hormone deficiency waxaan soo qaadanayna marka numberkiisi halkan aan gelinayna. thyroid hormone deficiency marka uu dhaco oo hormoonka loo yaqaan thyroid hormone uu yaraado ayaa hypothyroidism la yiraahdaa. waxaan tegaynaa ereyga shanaad oo la yiraahdo genomics. sida caadiga maxaa loo yaqaanaa genomics barashada la barto total genomics ama total geneska barashada la barto ayaa genomics loo yaqaan. genomics marka waa kan number 5 jawaabtii saxda waa kana oo maxay noqonay waa the study waa barashada of organisms genome geneska guud ee noolaha barashada la barto ama hidde-sidayaasha guud ahaan hidde-sidayaasha noolaha barashada la barto ayaa maxaa lagu magacaabaa genomics ayaa la yiraahdaa. waxaa inoo xiga wax loo yaqaan synovial fluid. synovial fluid maxaa lahaa waxaa leenahay waa dareere dareerahaasoo waxaa leenahay waxaa laga helaa meelaha ay ku kulmaan laba laf ama kala goosyada dareeraha laga helo ayaa waxaa lagu magacaabaa leenahay synovial fluids ayaa lagu magacaabaa markaa. waxaa leenahay synovial fluid marka waa dareere waxaa laga helaa meelaha ay ku kulmaan labada lafood oo kala goosyada wuxuuna sameeyaa leenahay waa lubricating waa garaaseyn. sidaa daraadeed synovial fluid maxaa leenahay waa kan jawaabtii saxda ah wuxuu noqon doonaa waa lubricating fluid waa dareere ama waa lubricating substance waa shay wax garaaseyn sameeya oo kala ilaaliya inay wax isxoqaan. fondi waxaana laga helaa in joints oo halka loo yaqaano kala goosyada laga helaa markaa. haye joint maxaa la kala goys maxaa la waa meesha laba lafood ay ku kulmaan ayaa kala goys la yiraahdaa. joint waxaa leenahay waa kan the place where two bones meet waa halka laba lafood ay ku kulmaan ayaa waxaa lagu magacaabaa joints ayaa la yiraahdaa. sidaa daraadeed numberka 7 soo qaad halka noo geli waa the place where two bones meet. waxaa imaanaynaa wax la yiraahdo codon. codon maxaa la yiraahdaa waa tribal base of the mRNA markay israacaan 3 xabo oo nitrogenous baseska messenger RNA ga marka la joogo 3dii nitrogen base ee israaca ayaa waxaa lagu magacaabaa codon ayaa la yiraahdaa. sidaa daraadeed codon waa kan the tribal base of the mRNA markay israacaan 3 nitrogen base ee uu leeyahay messenger RNA ga ayaa waxaa loo yaqaanaa codon. numberkiisa waa kana number 8 halkan noo geli. waxaa inoo soo haray DDT maxaa leenahay waa wax la soo gaabiyo wixii laga soo gaabiyo nagala rabaa marka. sida caadiga DDT waxaa la yiraahdaa waa insecticide waa waxyaabaha waa chemicals loo isticmaalo in cayaanada lagula dagaalo wixii laga soo gaabi lahaa ayaa nagala rabaa halkan uu yaala marka. waa kan jawaabtii saxda waxaa laga soo gaabiyaa dichloro diphenyl trichloroethane ayaa laga soo gaabiyaa. okay number ahaan waxaa leenahay soo qaad numberka 9aad waa kan halkan geli. waxaa imaanaynaa su-aasha 10aad ABO blood group. marka laga hadlayo ABO blood group systemka wuxuu noqdaa wuxuu example ama tusaale u noqdaa codominance and multiple allele oo macnaha marka laga hadlayo waxa la yiraahdo geneticska ama cilmiga barashada hidaha marka laga hadlayo
waxaa jira waxa la yidhahda codominancy iyo multiple allele. Multiple alleles maxaa la yidhahdaa waa astaamaha ama waa sifooyinka ay mas-uulka ka yihiin wax ka badan laba allele ayaa multiple allele yidhahdaa. Codominancyna maxaa la yidhahdaa waa marka labada allele ee halka astaan mas-uulka ka ah ee awood ahaan isku mid ay yihiin marka la fiiriyo soo muuqashadooda markaa. sidaa daraadeed ABO blood group wuxuu tusaale u yahay aynu leenahay example of wuxuu tusaale u yahay codominancy and multiple alleles markaa. halkaa ayadana waxaa u gudbaynaa qaybta labaad ee waxa la yidhaahdo multiple choice-ka imtixaankii markaa. Okay, waxaan u gudbi doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo waxaan gelaynaa qaybta saddexaad ama section C. qaybtan saddexaad waa su-aalaha tooska ama direct questionska ah. su-aasha koowaad ee direct questionka ah waxaana lahay define the following terms. waxaad qeexdaa the following terms oo ah ereyadani soo socdo qeex. waxaana lahay waxa la yidhahda mutation ama wax loo yaqaana dhalan rogad qeex. B waxaana lahaa waxaa qeexdaa wax loo yaqaana neuron. haddaan ku bilaawno qaybta A oo mutation aan ku bilaawno. mutation waxaa la yidhahdaa is a spontaneous change. waxaa leenahay waa isbedel si iskiisa u yimaad oo uusan noqon waxyaaba noolaha banaanka uga yimid. that spontaneous change in the genetic makeup of an organism. waxaa leenahay waa isbedel si iskiisa ugu yimid genetic makeup of an organism. genetically ama hidda ahaan ama genes ahaan waxyaabaha noolahan uu ka samaysnaa haddii isbedel uu ku yimid isbedelkaas oo aysan samayn wax banaanka ka yimid ayaa waxaa lagu magacaabaa leenahay mutation ama dhalan rogod ayaa lagu magacaabaa. B waxaana lahay neuron qeex. neuron maxaa la yidhahdaa are the working unit waa qaybta shaqada qabata of the nervous system ee habdhiska dareen wadka. that generate kuwaas oo dhaliya ama abuura and transmit gudbiyana nerve impulses fariimo dareen. marka qeexitaanka ugu gaaban waxaan dhihi karnaa neuron are the working unit of the nervous system waa qaybta shaqada qabata ee uu leeyahay habdhiska dareen wadka ayaa waxaa lagu magacaabaa neuron ama nervous cell ayaa la yidhahdaa. waxaan tegi doonaa su-aasha labaad. waxaa la state waxaad sheegtaa the two abnormalities laba xaaladood ama laba abnormality related to the following thyroid activities ee lala xiriiriyo thyroid activitieskani soo socdo laba xaaladood oo abnormal ah oo lala xiriiriyo ayaga sheegaa lagu dhaha markaa. hypothyroidism. hypothyroidism marka la joogo horta hypothyroidism maxaa la yidhahdaa waa marka uu yaraado thyroid hormoonka marka qofka jirkiisa uu ku yaraado ayaa waxaa la yidhahdaa hypothyroidism. hypothyroidismka laba xaaladood ama laba abnormality oo jirka noolaha ku timid markuu thyroid hormoonka uu yaraado ayaa nagala rabaa markaa. labada xaaladood tan koowaad waxaa leenahay kow qofka waxaa ku imaan doono weight gain oo ah qofkii miisaan ahaan ayuu kordhi doonaa macnaha qofkii wuu cayili doonaa tusaale ahaan. labaa nagala rabaa marka hypothyroidism markaa joogno. qaybta labaad waxay noqon doontaa leena tusaale ahaan oo kale waxaa imaan doono waxa la yidhaahdo low waxaa hoos u dhici doona waxaa loo yaqaano heart rate. low heart rate waxaa hoos u dhici doona waxa loo yaqaano garaaci wadnaha qofka oo kale hoos ayuu dhici doonaa qofkii miisaan ahaan wuu kordhi doonaa. sidoo kale waxaa la yidhahdaa qofkani waxaa ku imaan doona tusaale ahaan oo kaleeto heerkulka jirkiisa oo kale hoos ayuu u dhici doonaa. marka maadaamana laba abnormality mid walba ka sheeg kan koowaad waxaanana weight gain oo qofkani miisaan ahaan wuu kordhi doonaa. heart ratekiisa ama garaaciisa wadnahana waxaa leenahay low hoos ayuu u dhici doonaa. hyperthyroidism ayadana laba abnormality ama laba xabo oo kamid ah symptomska hyperthyroidismka nagala rabaa. okay kow horta hyperthyroidism maxaa lahaa waxaa la yidhahdaa markuu thyroid hormoonka qofka uu kordho ayaa waxaa la yidhahdaa hyperthyroidism. haye laba ka mid ah abnormalitygiisa maxaa ka mid ah kow waxaan leenahay tan koowaad wuxuu noqon doonaa weight loss oo kii hore weight gain oo ahaa kan waa weight loss macnaha thyroid hormoonka hadduu qofka ku bato miisaanka qofka hoos ayuu dhici doonaa. haye labo kii hore wuxuu ahaa low heart rate soomaan kan waxaa imaan doona waxa la yidhahdaa high heart rate oo micnaheedu maxaa laga wadaa heart ratekiisa ama waxa la yidhahdaa garaaca wadnihiisa wuu siyaadi doonaa ama wuu kordhi doonaa. waxyaabaha kale la arki doona waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano waxa la yidhahdaa heerkulka jirka qofkaanina sidoo kale ayagana wuu kordhi doonaa high waxaa la dhihi doonaa body temperaturena waa la dhihi doonaa. okay marka laba iyo labaana la weydiiyey hypothyroidism waxaana qofka miisaan ahaan wuu kordhi doonaa garaaca wadnahan hoos u dhici doonaa. hyperthyroidismna waxaan dhahnay weight loss oo miisaanka qofka wuu dhici doonaa ama hoos u dhici doonaa. high
high waxaa imaan doona waxa la yidhaha high heart rate oo micnaheedu maxaa laga wadaa qodobka labaad waxaa imaanaya waxa la yidhaha high heart rate oo micnaheedu maxaa laga wadaa garaaca wadnaha ayaa siyaadaya marka high heart rate garaaca wadnaha qofka ayaa siyaadaya. Okay, waxaan tegi doonaa su-aasha saddexaad. Differentiate between waxaa kala saartaa farqiga u dhexeeyo lipophilic and hydrophilic hormone. waa maxay lipophilic hormone? waa maxay hydrophilic hormone? Lipophilic hormone waxaa la yidhahdaa waa fat soluble hormone. hormoonada ku milma dufanka ayaa waxaa la yidhahdaa fat soluble hormone ama lipophilic hormone. Hydrophilic hormonesna maxaa la yidhahdaa waa hormoniska kuwa loo yaqaano water soluble hormone oo hormoniska kuwa ku milma biyaha ayaa lipophilic hormone la dhahaa. marka maxaan dhahnay lipophilic hormone maxaa lahaa waa fat soluble hormone. hydrophilic hormone maxaan leenahay water soluble hormone. qaybta labaad su-aasha maxaana lahaa give examples of lipophilic hormone. waxaad sheegtaa exambulo ama tusaalayaal lipophilic hormones ah. tusaale ahaan waxaan iskaga soo qaadan karnaa laba example iska soo qaado steroid hormoneska sida waxa la yidhahdo estrogenka iyo testosteronka iyo waxyaabaha, iyo sidoo kale waxaan soo qaadan karnaa waxa la yidhahdo thyroid hormoneska. ayagana waxay noqon doonaan waa tusaale, waxayna tusaale u yihiin lipophilic hormoneska. markaa waxaan tegaynaa su-aasha xigta ee ah su-aasha afraad imaw. waxaa la divine waxaa qeexdaa the term genetic engineering. waxaa qeexdaa ereygaas oo genetic engineering qeex ayaa lagu dhahay. markaa waxaa leenahay genetic engineering waxaa la yidhahdaa is a direct manipulating oo micnaheedu maxaa laga wadaa aan leenahay in si toos ama in la dhaho is a direct manipulation of organisms genes using biotechnology. waxaa leenahay genetic engineering waxaa la yidhahdaa is a direct manipulation in si toos ah waxa loo yaqaana waxaa leenahay controlo organisms genes hidasidayaashii noolaha using ayadoo la isticmaalayo waxa loo yaqaano biotechnology. intaa ayaa waxaa la yidhahdaa genetic engineering waa qeexitaankiisi. waxaan igala rabaa qaybta labaad ee su-aasha genetic engineering uses. genetic engineering marka laga hadlayo uses wuxuu isticmaalaa money methods oo habab fara badan and tools iyo qalabyo ama agabyo fara badan. list any 4 of them. waxaa tirisaa 4 ka mid a tiri ilaa 7 la gaarsiiya 4 ka mid a sheeg allah. 4 ka mid a sheeg marka la yidhahdo kow waxaa noqon doona wax loo yaqaano restriction enzyme. 2 waxaa inoo noqonaya wax la yidhahdo gel electrophoresis. 3 waxaa inoo noqon doona wax la yidhaahdo gene coloning. 4 waxaa noqonaya wax loo yaqaano PCR ama wax loo yaqaano polymerase chain reaction. tusaalahaan oo kale 5 waxaa la dhihi karaa recombinant DNA technology. waxaa kaloo ku darsan karnaa wax la yidhahdo fingerprinting. almuhiim waxaa nagala rabaa waa 4 ka mid a sheegaan allah. 4 tan koowaad waxaan waa restriction enzyme. 2 waxaan dhahnay waa gel electrophoresis. 3 waxaa leenahay recombinant DNA technology. 4 waxaan leenahay gene coloning. 4taas aan qaadana. markaa waxaan tegaynaa su-aasha shanaad. waxaana la differentiate waxaad kala socdaa between waxa u dhexeeya species diversity and genetic diversity. species diversity iyo genetic diversity farqiga u dhexeeya muxuu yahay? species diversity maxaa la yidhahdaa is a variety of species in a particular region. waa kala duwanaanshaha noocyada noolaha kuwaasoo ah kuwa meel qaas ah ku nool. tusaale ahaan oo kale markay hal area ay ku wada nool yihiin ari, geel, lo, bini aadan, geed, waxaa leenahay mid walba oo noolaha ka mid ah waa species gooni ah, different species allah. marka waxaa leenahay species diversity maxaa la yidhahdaa is a variety of species. waa kala duwanaanshaha noolaha in a particular region kuwaasoo ku nool region ama meel gooni ah. marka genetic diversity marka maxaa lahaa? waxaa leenahay genetic diversity markaan ka hadlayno waxaa lagu magacaabaa isagane is the variety of genes or inheritable characteristic. waxaa leenahay waa kala duwanaanshaha geneska ama hidasidayaasha or inheritable characteristics ama waxaa leenahay astaamaha la kala dhaxlo ee noolaha of a population. tusaalahaan oo kaleeto waxaa leenahay species diversity markaan dhahno genetic diversity markaan dhahno waxaa leenahay waa in nuuc ka mid a noolaha genes ahaan ama hidasida ahaan markay kala duwan yihiin ayaa waxaa lagu magacaabaa leenahay genetic diversity ayaa loo yaqaanaa. sidaa daraadeed maxaa leenahay genetic diversity waxaa la yidhahdaa is the variety of genes waa kala duwanaanshaha geneska ama hidasidayaasha or inheritable characteristics ama waxaa leenahay astaamaha la kala dhaxli karo
of organism ee noole noolaha hidasidayaashiisa markay kala duwan yihiin ama astaamihiisa la kala dhaxli karo markay kala duwan yihiin hal nooc oo noolaha kamid ah ayaa genetic diversity la yiraahdaa waxaan tegaynaa su-aasha lixaad waxaa la list two examples of waxaad sheegtaa laba tusaale mid walba kuwaani soo socda kamid ah ee waxaana la steroid hormone laba tusaale ka bix steroid hormone tusaale ahaan waxaan ka bixinaynaa kow waxaan leenahay steroid hormone waxaan soo qaadan karnaa waxa la yidhahda estrogen waa tusaale labo waxaan soo qaadan karnaa waxa la yidhahda testosterone labadaani waxaa leenahay waa laba tusaale oo hormoonada loo yaqaan steroid hormones b waxaana ila rabaa laba tusaale oo maxay yihiin non steroid hormoneska markaa non steroid hormone laba tusaale haddaan soo qaadano waxaan soo qaadan karnaa waxa la yidhahda hormoonka la yidhahda insulin hormoonka loo yaqaan insulin labo waxaan soo qaadan karnaa isagana hormoonka loo yaqaano insulin labo waxaan soo qaadan karnaa growth hormoneka isigana waxaa leenahay insulin iyo growth hormone labadoodaba waxay yihiin aan leenahay waa laba tusaale waxayna tusaale u yihiin wax loo yaqaano non steroid hormone ay tusaale u noqonayaan markaa halkaa waxaa u gudbaynaa ayadana su-aashii lixaad ayaan halkaa uga gudbi doonaa su-aasha toddobaad waxaana la differentiate between waxaad kala saartaa farqiga u dhexeeyo type 1 diabetes iyo type 2 diabetes type 1 diabetes marka laga hadlaayo nooca koowaad ee diabeteska ama sokorowga iyo nooca labaad kala saara lah noocan koowaad ee ah type 1 diabetes sidoo kale waxaa la dhihi karaa waa insulin dependent diabetes allah noocan la yidhahda markaa type 1 ama insulin dependent diabetes waxaa lahaa sida caadiga ah daylak iyagu ma lahan insulin secreting beta cells unugyada loo yaqaano beta cellska ay soo saara insulinku ma lahan maadaama aysan lahayn marka insulin secreting beta cells and consequently produce no insulin sidaa awgeed ma soo saarayaan wax insulin ma soo saarayaan waxaa la differentiate between type 1 diabetes iyo type 2 diabetes waxaa la marka nooca koowaad waxaa la yiraahdaa insulin dependent diabetes allah daylak iyagu ma lahan waxaysan lahayn waxa loo yaqaano insulin secreting beta cells unugyada loo yaqaano beta cellska ee soo saara insulinta ma lahan and consequently produce no insulin sidaa daraadeed jirkooda qofka jirkiisi ma soo saari doono hormoonka loo yaqaano insulin sidaa daraadeed qofkii insulin sida caadiga wuxuu noo qabtaa sokorta dhiigga ku jirta ayuu hoos u dhigaa haddii marka insulin la soo saari waayo qofkii waxaa dhici doonto sokorta jirkiisa ku jirta inay kacdo wixii hoos usoo dhigi lahaayna booska ay ka maqan yihiin waxaa lahaa qofkaas waxaa ku dhacay sokorow nooca loo yaqaano type 1ka markaa type 2 diabetes mellitus maxaa lahaa sidoo kale waxaa la dhihi karaa type 2 marka laga hadlaayo insulin independent diabetes lahaa waxaa leenahay kuwan waa insulin independent diabetes waa sokorow aanan ku tiirsanayn waxa loo yaqaano insulinta waxaa lahaa they have generally iyaga guud ahaan waxay leeyihiin normal or even above normal insulin waxay leeyihiin aan leenahay normal ama wax ka badan ama wax ka badanba normal insulin in their blood dhiigooda waxaa laga dhexheli karaa normal insulin ama wax ka badan normal insulinkii in ka badan ayaa dhiigga jirka qofka laga heli doonaa but their cells laakiin unugyadooda ayaa have reduced waxay hoos u dhigeen sensitivity to the insulin oo inay ka jawaab celiyaan insulintaas ayaa hoos loo dhigay sidaa daraadeed waxaa leenahay qofkani qaba type 2 diabeteska waxaa leenahay asiga insulin la-aan ma hayso jirkiisa waxaa laga heli karaa dhiiggiisa waxaa laga dhex heli karaa insulin aada u badan oo normal ah ama xataa normalka ka baxsan laakiin dhibaatada waxay ka taagan tahay jirkiisii ayaa waxaa leenahay unugyada jirkiisii jawaab celinta insulinta ay ka bixin lahaayeen ayaa hoos u dhacday ayadana waxaa la dhahdaa type 2 diabetes ayaa lagu magacaabaa waxaan tegaynaa su-aasha sideedaad waxaa la in the diagram below sawirka qaybta hoose ku yaal indicate waxaad muujisaa ama aad cadeysaa the lobes of the human brain lobeska ama qeybaha ama waxaa leenahay gododka of the human brain ee maskaxda bini aadanka and the name waxaana magacaawdaa parties qeybaha that are numbered A B C D macnaha qeybta maskaxda markaa fiiriso sida caadiga waxaa la maskaxda bini aadanku waxay ka kooban tahay ilaa 4 loob ama ilaa 4 qeybood
afarta loop sawir ahaan meeshaan lagu keenay mid A lagu qoray midna B mid C midna D mid walba magaciisa laga rabaa qaybtan hadda A-da notal waxaa noo ah waxa la yiraahdo qaybtaas A waxaa loo yaqaanaa waa frontal loop qaybta A-da maxay noqon doontaa frontal loop ayaa la yiraahdaa qaybta B oo ayadana qaybta halkan ku taala ee qaybta B ayadana waxaa loo yaqaanaa leenahay parietal loop qaybta C ayadana waxay noqon doontaa wax la yiraahdo afar loop ay ahaayeen qaybta C oo halkan ayadana waxay noqon doontaa wax la yiraahdo occipital loop waxay noqon doontaa wax la yiraahdo occipit qaybta A waxaa leenahay waa frontal loop qaybta B waxay noqonaysaa wax loo yaqaano parietal loop qaybta C waxaan nahnay waa occipital loop qaybta D waxay noo noqonaysaa waxa loo yaqaano ayadana waa temporal loop afartii loop ee maskaxda oo afartan marka su-aasha waxaan weydiiyay marka waxaa la maskaxda waxay ka kooban tahay loops afar loop ee ahayd ee maskaxda A B C D lagu soo kala qoray waxaa la A qaybtay u taagan tahay A waa qaybtan hore waxaa la yiraahdaa frontal loop qaybtan ku xigto waa qaybta B da la saaray waa parietal loop qaybtan dambe waxaa leenahay waa occipital loop qaybtan waxaa la yiraahdaa temporal loop oo waa labadan qaybood markaa halkaa waxaa u gudbi doonaa marka su-aasha 8aad ayaan halkaas uga gudbeynaa markaa waxaan u gudbi doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo su-aasha 9aad markaa su-aasha 9aad waxaana lahay a color blind man oo micnaheedu maxaa laga wadaa nin kaasi oo qaba ama wiil qaba cudurka loo yaqaan color blindness-ka oo aan midabada qaarkood kala saari karin ayaa Marius wuxuu goorsaday a career woman oo ah gabar taasoo waxaa leenahay cudurkii sida laakiin ayada aanan qabin what is the probability muxuu noqonayaa ixtimaalka that their children caruurtooda will be color blind ay ku noqon karaan kuwa qaba cudurka loo yaqaano color blindness-ka muxuu noqonayaa wallahi su-aashan markaa imaano a color blind man nin qaba color blindness ayaa Marius wuxuu guursaday a career woman gabar cudurkii sida ee ayada aanan qabin what is the probability muxuu yahay ixtimaalka that their children will be oo ku noqonayo cunugkooda color blind mid qaba color blindness probability cunugkooda oo ku noqon karo muxuu yahay markaa waxaa leena probability si aan soo saarno horta waxa isguursado waa wiil iyo gabar wiilku cudurka waxaa lahay wuu qabaa waxaa leena marka waxaa loo qaatay waxa la yiraahdo x iyo y waa wiilka gabadhana waxaa loo qaataa x iyo x wiilkan waxaa la cudurka wuu qabaa cudurka uu qabo waa color blindness wuxuu kamid ahaa marka sex linked geneska cudurada marka laga hadlaayo geneskooda ay saaran yihiin sex chromosomeska cudurka wuu qabaa haddii la waan la sii genotype ahaan waa x n small y gene-ka mas'uulka ka ah color blindness marka waxaa qaado chromosome-ka loo yaqaano chromosome x chromosome 1-ka y-ga ma qaado marka okay wiilkan wuxuu guursaday gabadhuna maxay tahay allahay waa carrier marka gabadha markay carrier tahay x-keeda koowaad waa n capital kan labaadna waa n small n capitalka marka wuxuu mas'uul ka yahay inuu qofka noqdo normal n smallna wuxuu mas'uul ka yahay inuu color blindness qofkan uu ku dhaco haddii labadooda israacaan mar walba waxaa soo muuqan doono gene-ka mas'uulka ka ah astaanta normalka ahayd ayaa soo muuqanaya marka stepka koowaad waxaa ka bilaabaynaa gamete formation halkan waxaa leenahay x waxaa imaan doona n small kan inta maxaa imaan doona y labadii qaybood waa la kala saaray gamete formationkii halkan imaa gamete formation sameey halkan dhinacan waxaa soo maraya x n capital dhinaca xaggana waxaa mari doona x n small inta markaa haysano waxaan diyaarsano waa gametiskii gabadha iyo gametiskii wiilkaba labada waa noo diyaar ayaan isku talaalno waxaan sameynaynaa gametkan wiilka ayaa waxaa lagu talaalaa midka gabadha halkan waxaa yaala x
intana waxaa yaala x. x kan n small saaran kanna n capital waaye. sidaa daraadeed mar walba waxaan soo hormarsanaynaa kan capitalka. halkan waxaan leenahay x n capital x n small. okay, haddana kanaan qaadeynaa gaamidkan waxaan ku talaalinaa gaamidka kale ee kan gabadha ah x x. kan waxaa saaran n small, kanna waa n small. okay, n small n small. okay, halkaan markaa taagannahay waa kasoo dhamaanay gaamidkan. haye gaamidkan haddana waxaa ku talaali doonaa kan. haye kan qaad oo kan ku talaal. waxaa imaan doona x n capital okay. su-aashan sagaalaad haddii aan dhahno waxaa leenahay waa color blind man oo nin qaba color blindness ayaa Marius wuxuu guursaday a carrier woman oo gabar cudurkii sida. what is the probability muxuu noqonayaa ixtimaalka that their children will be kaasoo uu ku noqon karo ilmahooda color blind, kuwa qaba color blindness probability-ga ilmahooda ay ku noqon karaan ama uu uga soo muuqan kara color blindness-ka muxuu yahay. waxaa leenahay wiilka waxaana lahay waa x n capital y. gabadhana waxaana la siiyey gaamid ahaan, gabadhana waxaana la siiyey wax la yidhaahdo gabadhana waxaana la siiyey x x n capital n small. gabadhan marka cudurka way sidaa waa genotype ahaan, wiilkaana cudurkii wuu qabaa, labadooda isguursadeen. stepka koowaad waxaa la sameyn doonaa gamete formation. labadaani gene ama labadaani hala kala qaado, kala saar. inta waxaa imaan doona n small, halkaana waa y. labadan ayagana kala saar waa x n capital, intana x n small. intaa markaa mareyno waxaan sameyneynaa markaa waa gametes way noo diyaarsan yihiin. markaa gametes markay diyaarsan yihiin, stepka xiga maxaa la sameyn doonaa waxa la yidhaha fertilization oo ah in la isku bacrimiyo. markaa gaamidkan koowaad ee wiilka ayaa waxaa ku talaalinaa gaamidka koowaad ee gabadha x x. kan n capital sidaa, kanna n small. waxaan hormarinaynaa capitalka n capital n small. okay, haye kan qaad haddana waxaan ku talaalinaa kaa kale. waxaa leenahay x x. kan waxaa saarnaa n small, kanna waa n small. okay, gaamidkan waa wiilka u lahaa, labadan waa ku talaalnay. waxaa u imaanaynaa gaamidkan labaad ee wiilka, labadan gaamid ee gabadha haddana ku talaalinaa. haye kan qaad, kan ku talaal. waxaa leenahay horta waa x halkan, intana waxaa yaala y. x kan anana y iyo x x maxaa saarnaa n capital. haye gaamidkan qaad haddana kan ku talaal. waxaa yaala x y. x ka maxaa saarnaa n small. inta soo baxda waa intan waa 4. 1 2 3 4. kan koowaad x x hadday israacaan waa gabar. gabadhaas waxaa leenahay labadeeda gene ee mas-uulka ka ahaa midabka indhaheeda ay arki karaan. midna waxaana waa n capital, midna waa n small. n capital n small hadday israacaan, n capital waa geneka mas-uulka ka ahaa waxa loo yaqaana color blindness normalka. n smallna muxuu mas-uul ka ahaa color blindness. labadooda hadday israacaan waxaa soo muuqan doona normal. waxaa leenahay gabadhan waxay noqon doontaa waa gabar oo waxay tahay carrier ah, cudurka sida. ayadu ma qabto gabadhan. maxay tahay gabadhan carrier waa cudurka way sidaa ee cudurku ma qabto. haye meeshan waxaa yaala x x waa gabar, n small n small. haddii labada gene labadaba ay noqdaan waxa la yidhaahdo small, waxaa leenahay gabadhan cudurka way qabtaa. waxay noqon doontaa marka waa color blindness. waxay noqon doontaa gabar cudurka la yidhaahdo color blindness-ka qabta ayay noqon doontaa color blind. okay, halkan imaa x iyo y waa wiil. x-ka waxaa saaran waa n capital, sidaa daraadeed wiilkan wuxuu noqon doonaa waa normal. x iyo y waa wiil, x-kiisa waxaa saaran n small, sidaa daraadeed wiilka maadaama uu leeyahay oo keliya hal x,
xkiisana uu saaran yahay jiinkii mas-uulka ka ah color blindness wiilkan waxaa leenahay cudurka uu qabaa waa color blindness color blind uu noqon doonaa color blind okay waxaana la weydiiyey marka maxay tahay probability-ga cunugkooda uu ku qabi kara color blindness okay halkan markaan taagana waxaa leenahay guud ahaan caruurta dhalato waa 4 meeqa ayaa cudurka qabto color blindness-ka okay kan waa gabadhan waxay noqotay color blind wiilkana muxuu noqday color blind okay gabadhan waxay noqotay normal wiilkan wuxuu noqday normal gabadhana waa carrier sidaa daraaddeed laba cunugna cudurka ay qabtaa labana waa normal sidaa daraaddeed total waa 4 cudurka meeqa qabto waa 2 times 100% si probability ama waxaa leenahay aan u soo saarna percentage ahaan marka probability-gu hay laba haddaan ku dhufano waxaa leenahay 100 waxaa leenahay waa 200 4 u qaybi waxaa inoo soo bixi doona 200 haddii aynu u qaybino 4 waxaa inoo soo baxay 50% jawaabtana la rabo intaan ahayd marka waxaa leenahay probability-ga cunugkooda uu ku noqonayo mid qaba color blindness wuxuu noqon doontaa leenahay waa 50 macnaha waa 50-50 konton haddee boqolkiiba konton ilmahooda cudurka way qabi doonaan boqolkiiba kontonna waxay noqon doonaan kuwa normal ama carrier ay noqonayaan marka normal iyo carrier ah marka halkaa waxaa u gudbaynaa su-aasha 9aad marka waxaan tegaynaa su-aasha 10aad waxaa lahay the follow jartigan ama shaxdani qaybta hoose taal ayaa indicates waxay muujinaysaa the parties qaybaha of the nervous system ee habdhiska dareenwadka complete waxaa dhamaystirtaa the missing parties qaybaha maqan in the box macnaha waxaa lahay su-aashan qaybta taal jartiga meeshan yaalo wuxuu muujinayaa nervous systemkii waxaa lahaa sidaa daraaddeed waxaa laga rabaa inaad dhamaystirto jadwalkan ama jartigan waxa ka maqan markaa halkan imaa waxaa lahaa nervous system halkan markaa imaano nervous system waxaa leenaha nervous system-ka waa la kala qaybshaa labaa loo kala qaybshaa allahay qaybtan waxaa yaala peripheral nervous system qaybti kale maxay noqonaya marka peripheral maana qaybta labaad maxay ahayd central nervous system waa qaybta labaad qaybta maqan maxay tahay central nervous system central nervous system okay central nervous systemka labaa loo qaybshaa lahay qaybta koowaad waa spinal cord oo xangulo ah qaybta maqan maxay noqonaya marka qaybta maqan waxaan leenahay waa brain oo macnaheedu maxaa laga wadaa maskax okay halkan imaa peripheral nervous systemka qaybta loo yaqaan centralka waa qaybta guud ee laga maamulo nervous systemka qaybta wax maamusho ayaa central lahaa waana maskaxda iyo xangulaha dhahne peripheral maxaa lahaa qaybtan wax maamulaysa ee centralka ah kuwa fariimaha keena kana qaada ayaa waxay noqon doonaan peripheral nervous system labaa loo kala qaybiyaa qaybtan koowaad waxaana lahay sensory division qaybta maqan waxay noqon doontaa waxay noqonaysaa leenahay motor division ayay noqon doontaa qaybta maqan maxay noqon doontaa motor division okay qaybta la yidhahda motor division-ka waxaa lahay labaa loo qaybshaa labada loo qaybsha maxay noqonaya qayb waxaa la yidhahdaa somatic nervous system qaybta maqan maxay noqonaya marka qaybta maqanna waxaa la dhihi doonaa autonomic ayaa la dhihi doonaa autonomic nervous system autonomic nervous system okay qaybta dhiman waxay ahayd waa qaybta ka maqneed autonomic nervous system aa la yihahdaa halkaas marka waxaa ku dhammaaday imtixaankii maadada biology-ga halkaasuu ku dhammaaday waa imtixaankii hore national examka ama imtixaankii hore ee dowladda sanadka 2021 ayuu ka ahaa markaa okay wabillahi tawfiiq akaademiyada qaamuus